بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي هذا السلام عليكم ستودني تعالى كجوكتان وعيوش عبد القادر يوتيوب channel كداونيش وعيوش كوكنا بيوري وحارجينا إني عافمad qabtaan ana sidoo kale marka hore waxaad leeyahay asxaabi soo dhawaada gacmo furan qalbi furan channelkiina waaye maanta waxaan inoo wadaa casiir moos bil tufaax aqdar insha Allah waa arki doontiin sida uu sameeyo iyo inta shay aan ka sameeyo soo dhawaada aad leeyahay mar labaad marka hore meeshan waxaan ku haystaa laba xabo oo tufaax aan soo jarjaray tufaaxa aqdarka sidoo kale 30 gram oo sokor ah macaankeeda kugu xirantaa daarto waa ka badsan kartaa mooska saa u jeedaan fiidiyowga ka horeeyay aan sameeyay sida loo xafido saa u jeedaan maasha Allah tabarakallah wali wax madoobaad ah ma taaban liano liina ku miiray tufaaxana midkaan waa midkaan soo jarjartay iyo waxaan haystaa 6 xabo mukaacabaad talaj ah baraf haddana ma soo shiidanayna mooska wax saan ka dhigo waxa waa uu wali u madoobaanin inkastoo uu ku jiray bareesarka haddana liina ku sii miiray caanaha isticmaali doonana caanaha waaye ay caanaha isticmaali kartaa midka budada mina caanaha booraha ama caanaha caaga haddana waa isku darsanayna kadibna waa shiidayna insha Allah cabitaankan ninkii sameysto oo soo dhadhamiyo baa ka sheekeyn kara macaankiisa kaaliska arag waa saraxatan ana waa ka helay idinkana soo tijaabiya ilmihiina u sameysta sokortana saa hore kugu sheego macaanka hadii aad rabtid intaa waa kasii basan kartaa laakiin mooska macaan ah sidaas darteed marka intaan sokor waa kasii badin waaye caanaha aan ku darayna 2 koob waaye hadii ay jeceshahay waa kasii basan kartaa ani laakiin 2 galaas caano waxa ugu dhigay oo yareeyay macnaha waxaan rabaa xoogaa inuu casiirka ii noqdo casiir dagiil ah sida casiiraadka maxallaadka waaweyn lagu gado kale inuu bibi iga noqonaa rabaa oo dagiil noqdo maasha Allah tabarakallah kulma uu dagiil yahayna kaaliska arag ku soo baxaa marka waa shiidayna tufaaxa dad jecel inay qolof ku shiitaan dadna maxay ahaato qolofka ma jecla hadii aad jeceshahay qolofka waa ma ku shiida kartaa oo maxay ahaato qolofka kor la ka soo dhaqay macna qolofkiisa kula jarjarane laakiin hadii aad cunug siinayso sidoo kale minaha sacab ay kugu tahay hadhowtu waxay noqonay inaa maxay ahaato caano mir ah u qaadatid oo hadii iyo ku inaa mirtid ay noqonay laakiin hadii aad qolofka fiiqdid wax miritaan wax ay ka rabta ma lahan qolofka kale marka maxay ahaato sheeg faa'iidooyin badan ku jira laha markii oo aad caabi sidoo kale waa sameysan kartaa laakiin hadaa mar cunug siinaysid oo kula cabaayo oo masaasad aad ku shubeysid hadda iyo miro iyo koob ku noqonay sheekada jidid noqonay sidaas darteedna marka wixii oo nafaqo lahaa dhan wayba ka bixin mahano moos la miiro maxaa ka soo haraayo mana ku fiicna saraxatan mooska iyo tufaaxa iyo waxyaalahaas oo kale in la miiro dhaxda wax ku jira miraha la ka bixinay tufaaxa qolofka koraa ka shii ka maxay ahaato ka qaade kadibna isku shiidanaya laakiin hadii aad ku shubeynin sidoo kale saa u jeedaa waa ka saadeer sidaas u dareeraya waxba miiritaan iyo hawla dhaadheer uma baahna laakiin hadii aad cunug siinaysid qolofka anahan waxa ku dhigi lahaa ku shiidanin laakiin aad hada cunug siisaneen oo ku shiidan kartaa faa'iido badan oo leeyahay laha qolofka saa u jeedaan maasha Allah tabarakallah koobka ugu horeeyay sidaas ku soo baxay koobka labaadna waa kana bakeeriga salkiisa oo fiimta ku shubaya qurxina ka rabaa oo kaliya xoogaana ka hayriisna oo fiimtadan wasiine maasha Allah tabarakallah jabiro moosna ee dhinaca ka soo suray qurxin camal waa koobka labaad maasha Allah tabarakallah saraxatan ana waa ka helay idinkana ka faa'iideysta ciyaalkiina ugu faa'iideeya casiir aan laga sheekay karin waa maasha Allah dhadhankiisa qofkii cabo baa ka sheekeyn karo marba hadii aad casiir sameynaysid ama naftaada ama ciyaalkaada u sameysanaysid sameyso wax markaas faa'iido leh oo meel dheerna aad raadinayno gurigaada dhexdiisa aad ka helaysid oo ilmahaadana faa'iido badan ay ku helayaan waxa hubaale cunugii hal koob ka caba inuu maalin walba ku weydiinayo muuqaalka ka horeeyay oo mooska ahaa idinku dhahay muuqaalka xigi doona insha Allah wuxuu noqon doonaa casiir moos waana kana waa sameeyay maasha Allah tabarakallah sidaan qurux badan oo ku soo baxay macaankiisana hore aad ku soo sheegay aad ka sheekeyn karta malahan
muuqaalka dhamaadkiisa haddii aad soo gaartay waa kaaga mahadcelinaya. aad iyo aad aa mahadsantahay ku leeyahay waqtigaada. haddii aa hore noola joogtay waxaan ku leeyahay jirow joog. asxaabteeda cusub haddii aa ka mid tahayna subscribe ka saaro, gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba aan soo geliyo. fiidiyowga haddii aad ka heshay leegta saar, leegta dhiirigelin ayay noo tahay. commentiga hoosena wixii fikrad ama dhiirigelin waa iigu reebi kartaan. asxaabta mar walba dhiirigelinta iyo ducooyinka ii soo dirana waa idinkaga mahadcelinaya. jazaakumullah khayr aa idin leeyahay. muuqaalka xiginta ku kulmi doono waa walaashiina Cayuusho idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.